على أشرف المرسلين. heestaasi waxay ahayd 79 ayay soo baxday. qaabka ay u soo baxday iyo ujeeddadii iyo wixii niyahow Soomaalidu marka ay suugaanta dhex galaan ama wax dhageystaan qofba sibuu u fasirtaa ama cid buu la jeclaadaa ama erayada gudaheeda ku jira ayuu micno kala siiyaa oo waji kale u sameeya. heestan subaxanoo iska fadhiya xafiiskayga akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ayaa waxaa ii yimid in la yidhaha Salaadarbi oo heesaa ah oo waa beri ah. markaasuu yidhi waa ku akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ayaa waxaa ii yimid in la yidhaha Salaadarbi oo heesaa ah oo waa beri ah. markaasuu yidhi waa ku doonayay nin baa halkan jooga sakaraad ah oo rafanayo naftii ka baxayso inaad iila tagtaan rabaa oo aanu bal xaaladiisa wax ka ogaano soo eegno. waan isa soo raacnay nin xafiis fadhiyaan u nimid oo meel baabuurta lagu kireysto oo taraleejo la yidhaaho iyo wax isugu qoofalan yihiin. ninka magaciisa uu baray waxaa la yidhaha Cismaan Kurmiye Fagaas. wuu ooyayaa ninku hadba warqad buu soo qaadanayaa duuf iyo ilmo iska tirayaa siinka iska dhareerinayaa waxbaa ka daadanaya tol beelay hal ii hiiliyuu leeyahay. war maxaan kuugu hiilinaa jacayl baahiya. waa nin weyn oo ilaa 55-60 markaas jira oo carruurtiisu naaga leedahay ama rag leedahay oo la guursaday laakiin isma naqaan. ninkii baan iswaraysanay bal sida loo hayo iyo wax ku dhacay. wuxuu yidhi gabar baan jeclahay aamine la yidhaaho magaceedii kale ma garanayo la foolay dhigataa waan isbarannay 2 sano 3 sanaan wada soconnay oo haasaawuhu naga dhaxeeyey. aabbaheed waa soo xajisiiyey baabuur baan u gaday waa isguursanaynaa bay tiri. dabadeedna markaan wax walba u dhameeyey oo aqalkii aan isku aroosi lahayn dhisay oo guri qurux miirana xataa uu na soo tusay oo marmar iyo lagu sameeyey bahalkii dushiisa. markaasay haddana tiri buu yidhi kuma rabo aabbahay baad iga tahay. marka mar baan damcay buu yidhi inaan isdilo mar waxaan damcay inaan iyadii dilo bastoolad baan wataaye mar waxaan damcay inaan tashi badan baa walaahow baa igu dhacay buu yidhi. marka arrintaas markaan dad kala tashaday waxaa la yidhi buu yidhi suugaantaa wax looga qaban karaa ee ragga suugaanyahanka ha ku hiiliyeen u tag. ninku dhinaca suugaanta iyo fanka iyo warbaahinta caalamka iyo waxoo dhanba shaqo kuma leh. raadiyaha maxadada muqdisho ma geysan karo iyo BBC-da toona waa ka madowda. hawlo kale iyo guryo dhis iyo baabuur kirey waxa qalab waxaas ku mashquulsan. bas waa israacnay meel baan fariisanay wuu noo sheekeeyey gabadhii in layla qabtaan rabaa buu yidhi. hees baan tiriyey la yidhaaho samirkii ayuub oo aan hadda hayn. ما هنولية قاضية مقالة ويتها الله بيقول عبد الكريم شيرية ولا قاضية أنا وسا ما هيستوى سبضنا هساي جورن ما هيو حبك ما هيو أو وحي راعين وحي قبل القيستي مركا هيستوى أنت اللي قال لوجي عبد الكريم بوسبي نعطك هنولية قاضي حوي ويكرر ودي هسي أو ناقدي ويكرر وزود بعمري markiis xaaladdu halkaa joogto ayaan heestan sameeyey daalo asagiina waxaan ku idhi waxaad yeeshaa magaalada ka bax oo meelan la aqoon tag
heesana gabadha inta loo geeyo marka farta laga saaro adigu magaalada ka bax magaaladii buu isaga baxay uu aaday cariga Talyaaniga 7 cisho gabadhii markay heestii dhageysanaysay ayay xafiiskiisii timid amaba waa ka yaray baan u malaynayaa 7 cisho markaasay waxay tiri ninkii ma joogo xagee jira ma naqaan Talyaaniga iyo meelaha soo aaday halla ii raadiyo teleefankiisii waa loo raadiyay oo waa heshado haddaad taagan tahayna soo dhaqaaq haddaad fadhidana soo istaag bay tiriyo meeshay dalabkoodii iyo hawlahoodii ku dhamaysteen teleefankii iyo waa yimido waa israaceen oo cagaaran meel la yiraahdo marka agteeda laga soo meheriyado nabaday halkaasay hawsha ku dhamaysteen gabadhii iyo ninkii Ismaaciil Calfan ma aqaan wax ku dhacay dhowr bilood markuu ayuu mehersanay horta markii arrintaasi dhacday oo ismehersadeen ballantayadu waxay ahayd gabadhaas markay ogolaato ninka inuu noo yeero oo nacasuumo oo naga farxiyo oo hawshii dee hawl qaran ka dhigo ma uu yeelin shibtiisuu galay suuqan ka soo maqlay in hawshii ay dhamaatay waanu mido maxaa dhacay baan yiri wuxuu yiri waxba dhacay oo gabadhii waxay tiri arrinta yaan la maqlin oo qof kale oo bili aadanayo maqlin oo anigu jaamacadda dhigtay ilaa aan ka dhamaynayo hanoo rahmanaato arooska iyo wixii faahfaahintiisa ahi markaas hawshaas aan dhamaysanay ka bacdi wixii haddana heesihii la ii tiriyay aan kugu ogolaadayna suuqay ku jiraan suuqa laga saaro markaas bacalaha meel la yiraahdo oo aad wax looga gadgato ayaa heestii labadii heesood iyo kuwa waxay qaali ka noqdeenoo ajradii ma aqaan intaas la kala siistaayo waa la kala boobaayo waa la kala dafaa hala soo ururiyo buu yiri ninkii marka waxaan ku yiri war bulshada iskale markii wuxuu naga soo baxaan ka bacdi inaan soo ururinina kuma aan tala gelin mana ururinaba anagu ma balihin shacab weynaha iskale maxaa saaw yeeshay ma ilaa bila waa in la soo ururiyo adigu soo ururi baan ururi xageeba ka soo ururin kara la kala tagi ishadii dambe waxa dhacday sheeko dheer baa jirta gurigii aan deganaaba qoladii lahayd nooga guurtiri guri la'aan baan noqday ishadii dambe waxa la yiri aniga hadraawi oo wada fadhina ayaa telefoon loo soo diray nin dekada madax ka ah yaa telefoonka noo soo diray Cabdullaahi gacal la yiraahdo jamiye ma jooga iidi waa ila hadlay wuxuu yiri guri soo raadinad meen Siid Cali Cabdilla Barre gurigiisii tag guriga ka soo horjeeda oo ayagu ay leeyihiin baa kira ah halaga kireeyo u tag gurigii baan tagay Siid Cali ma aqaan laakiin markaan gurigii tagay baan waxaan gartay xaaskiisii oo gabaraan awoowo ahay way noqotay naabal waran nabadiyo nabad haye gurigii baan arkay waxaan gurigaan inaan liga kireeyaan rabo oo yaa ka kireeyay cidaas ay Siid Cali iyo Cabdullaahi Cali ragaas ay iga kireeyay way qosasho way ugu qosasho ciil beebsteed la tahay gabadhu ana deerka u ahay oo maadigii baa soo doontay bay waliba tiri maxaa dhacay waran guri kara ma aragay iga tagay tiri wadaadii oo qabqablay gabar yar guriga joogta ii ilkabisay ayadii waa baxday tu yar baa furihii siisay habeennimaan gurigii ku soo guuray 5tii aroornimo waa seexday uur bay lahayd barqada iyadoo guriga banaankiisii fadhida gurigu waa isku albaab laga soo wada galaa ganjeel markaas waa laba fiilo iska soo horjeeda gurigeeda ridiisa iyadoo fadhiday aragtaan oo guriga soo toosay way qosasho maxaa ku gulay xagee ka timid gurigan ka soo toosay oo goorma soo degtay xalay baan soo degay waa qosasho way iga aamustay duurkii anoo gurigii fadhiya ayaa ayadii iyo naag kale oo ana aqoon oo laba bastoolood waa askar naaguhu waa laba kornayl labadoodii laba bastoolood istay soo galay waa ku dilaynaa bay yiraahdeen oo maxaad ii dilaysaan
inaan baabuurku marinaan rabnayoo dhiiggaaga haddana dafirre ma haddaad annaga xaafadayadii nagu soo doonatay oo maxaan galabsaday sow ninkii ma tihid ninka adaga heesta u sameeyade naagaha ku daraye haddii ilaahay kuusama ogol yahay aan ka basayrsanahayba kulligayo oo adinku maxaa ahaydee sow waa ileen ninkaanan u heesay naagtiisii xaaskiisii iyo gabadha aan adeerka u hayo saaxiiba oo laba askari ah oo ciidan ah oo basdooladahooda watiyo xidigahooda yaa nafka uga soo galay na adigu maxaad ahayd xaaskii cismaan kulmiyaan ahay waa naag da'ah meel dhexaada wallaahi inaanaan ku daynayn haddii kale waxaad samaysaa heesi ninku naagtii ku furayo naa ma samayn kare eh oo afkii shalay aan wax ku sameeyey waxaana kuma samayn kare eh cay labadaba kala daal ba yidhaahay adigu calaa kulli xaal waxaan waqti ii qabta 21 cisho 22 cisho ii qabtaan waa yahay oo waa la ii qabtayoo muddo yar kadib adigu 19 cisho 18 cisho markii la joogo ayagaan waxaan arkay gurigiioo alalaas ka baxayo oo foox la shiday oo kaygii inta la furtay alaab hadiyada saacado cimaamado shaala macawiso baraafuun wax walba la soo dhigay oo jaad ii yaallo oo adduunkaygii suuqii qoofalan yahay oo maxaa dhacayaa inoo soo degay maya ninkii baa naagtii furay haa oo waa ducadaadii iyo hambalyadaadii iyo waxaanu kuu garannay wey oo muxuu ku furay seebuu u furay naga daa ma naqaane furiyey jiri la tagtii halkaasaa horta aanu ku heshiinay labadii qolana ninkii inaanu dhalay baan maalin dhaweyd ku arkay magaalada war odagii ka warran oo waaba xanuunsanayaa buu yidhi oo waa gaboobay marka heestu horta saasay ku baxday ciido kale waa la siiyey oo ciido kale waa la siiyey oo ciido kale waa la siiyey oo naag kastoo aamina la yidhaaha anaa la ii tiriyoo sayntay ruxday mid la qabay iyo mid markaa la guursaday iyo mid konton haweenaha ku diriray heestu marka saasay ku soo baxday horta حضرتين عبد القادر ومركا lagugu yiri gabadhii ninkii wuu furay ilaa marka hore watan lagu qabsaday suugaatina dambi ku jirto dambi inantan ka gashay gabadhan xaaska ah ninka kale aadna odageedii aad u dhisayso aad ku guubaabinayso ma laga yaabaa inaad qalbiga ama niyada ka xumaatay oo ay sabab u yeelatay jacaylkiisii maya waa ka xumaadayo markii hore asagaan xumeeyay horta markii hore oo arrintii iyo ballantii aan isku ogeyn nooga baxay kooxdayadii hawsha wada qabatay ilaa anigu keligay ma ahayne hawsha dad badan baa wada qabtay marka heestii soo ururiya oo suuqii inta gashaan ka soo ururiya heesihii cajradaha dadku haysto dawlad baan ururin karin xataa dawladaan ururin karin isu tegey marka waxay ila noqotay arrin qalafsan oo markaan dambe raalli baan ka ahaa haweenkan dambe ee i qabsanaya in arrintooda u hagaagto oo ninkii naagtu aysan is calfan raalli baaban ka ahaa anaa ku duceeyey marka tii hore say u dhacday baan marka aqriyayaa erayadeedii wuxuu yidhi durdur iyo xareedey doog iyo ugbaadey dalaalnimada cadarka iyo dhibic iyo daruuray muusoo waa bari dilaacay mankaymaha ka darariyo daala aragtideeda dayixiyo
dhulka isku daray iyo dusha roob la dhaca iyo daa'uus la mooji diirimaadka laabtiyo dawadii naftaydaay taan hablaha ka doortee dareenkayga siiyaay xubna dabacsan leeyay nebi yuusuf dabadii tii dumarka quruxda leh haldoorkeeda noqotay dambal iyo labeen iyo dahab midabkileeyey xuurulciintii dunidee daawashada u timid ee dalka lagu manaystay keligaabaaba xuurulciintii ka yimid oo midh daawashaad u timid qof adduunka loogu talagalay ma tihid bal sida loo soo jiidanay diido calafkeen aqal laba daryaaloo aan xariir ku daahniyo inaan dadab wadaagno waqtiguna na kala diro kuma dudayee naxariis da'weyn iyo ducan kugu sagoonti allah deeqa bixiye anna kuma dudayo naxariis da'weyne ducan kugu sagootiin ninka damacu raacee dooqu calanka saaree guur aad ka doontee kugu gacan dambeeyana andardaaran siiye ninka damacu raacee وعلى صاحي قرأت كدونتي وبعد دمي أنا عندر دارن عندر دارن واللبين dadnimadu yeh aamina ka doortoow daji meel barwaaqa ah diihaalka gaajiya diindaamiyey arag aamina ka doortoow daji meel barwaaqa diihaalka gaajiyo diindaamiyey arag aamina ka doortoow darayadu ma fiicnee yay ka noqon maryuhu duug ha u yaalla dahabkuna daris aan habboonayn yay dareemin qayladii naaga jaqjaqle iyo wax ma arki karto ka ilaali dibadda iyo gudahaba meelaha la daawado
ee dalxiiska loo tago ha il doogsatee geed بدأ يقودها ميلها لداوضو إذا الحس كالوطو هاي الدوكسيكي dusha nabar ha taabsiin xaashaaka lilaah ha u quurin ha dagaalin waa gobe hadal doqon ma garataya ha ku dayin ma yeesheen الشنابر هتابسي هتقعد واقب الشنابر هتابسي هتقعد واقب هتقعد مجرتا هتبين ويشي الشنابر هتابسي هتقعد واقب الشنابر هتابسي هتقعد واقب هتقعد مجرتا هتبين ويشي waxaad dihatay hooyadii dadnimada ku beerto aabbaheedna waa diric ragna doorki weeye waa durriyad xalaaleh waalidkeedna daadihi waxaa jira nin dooroo dantu ceeb u yeeshee haddaad sidaad yeeli lahayd inaad dhaqaala haysan baa suurtowda waxaa jira nin dooroo dantu ceeb u yeeshee waxa aaminow dana hadday waaye diidaan soo doono waa gare anaa ku siinaya soo doono waa gare anigow diyaaroo daryeelkeedu igu yahay xil aan duudka saaree wax alla wixii gabadhaa ka xumaada adaan kuu haystaa haddii dhaqaale aad weydo oo wixii aad ku soo daawisiin lahayd gobollada honduras iyo uruguay ee latiin america ku yaal hadday u baahato waxay aad ku geyn lahayd haddaad weydo anagaa kuu hayee ii kaalay buu leeyahay haddii taa aad diiddee duugga nolosha aamina dayac noqoto waa qaan waana kula dacway maxkamad baa kula fuulaya waanan kula dacweeyaa nin yahow sidaa yeel oo gabadhaa sidaa u daryeel oo ilaali quruxdeeda iyo bilicdeeda iyo dharkeeda iyo dahabkeeda iyo dareenkeeda oo xataa daris xun oo ku qayliya iyo wax jaqjaqlahoo meelahaaska iyay arkin daa'uuska uga dhig hadday doonto rakuub ay ku soo martay adduunka oo dhan wakaa sawirkiisii haa marka sidaasay horta ku dhacday heestu gabadhii ninkii waa oggolaatay laakiin ismaaciil calfan oo durba wuu furay baa la yidhi heestii ka horraysayna ma hayo anigu kuu sheegadoo sidaasay ku dhacday daalo ciddii cid kala siisay oo tidhi gabar heblaan loo tiriyey iyo haween hebel leey baa lahayd iyo nin hebel baa saas yeelay iyo hebel baa midhaha lahaa iyo kuwii kalaasaan ahaa intuba waxay ogaanayaan sheekadu say ku soo baxday iyo hadda intaan halka joogay nin baa maalin casuumay wuxuu yidhi inta Soomaaliya joogtay imika inta Hargeysa joogay hadda Soomaaliya nin baa casuumay waa sheekaysanay horta heestaas maxaad ula jeeday barigii ninkaas aad u tiri ninkaa maya saasay ahayd markaan maya taas tan kalaa ka fiican anigu ninkaan siiyey baa kaga fiican oo kaga habboon oo waxaa siiyey nin ina xoosh la yidhaaho oo gabadh aamine la yidhaaho oo reer bulcaa guursaday oo gabadha hoostees bay ahayd oo waa wasiir ninkaan ila hadlaya gabadha hoostees bay ahayd oo asagu taajir buu ahaa oo jilee buu dejiyey oo meel walba adduunku soo mariyey oo waqtiin la ogaa
oo maalinkii uu aroodkiisii 190 maxawisood buu keenay wiil oo xariiro kuwa kaatuka ka dusa ayuu noo keenay wiil rag meesha fadhiyay u keenay marka ninkan kaga qurux badan ee asagaan anigu siiyado saas uu ku helay adiguna siibuu yiri waxa anigu go'aankii miyaan maalinka idin la joogay maya haddii ay dhab tahay oo ninkaasi leeyahay waa arooskaaba laygu casuumi lahaa waa nimaan lahaa sidaa darteed maba ay dhicin heestuna sheekadeedii bay lahayd marka taas halkaasaan uga gudbaynaa cabdulqaadir intaan iyada ka bixin waxaan jeclahay su'aal kaa weydiiyo ereyo qurqurux badan baa heesta ku jira runtii waana hees jacayl horta aan ku weydiiyo su'aal ayaa laxanka heesta codka saaray cabdikariim baa sameeyey cabdikariim faarax qaari cabdikariim jiir waan gartay way heestan ereyada imika gudaheeda markaad tirinaysay waxa ku jira adigan ku soo daray heestu adigan marka hore sheegayba inay tahay hees aad u samaystay marka aad aragtay murugada ninkan haysata oodan hore soo aqoon laakiin la iskiin baray waxa la iskiin barayna ay tahay balnaad uga hiilisa jacaylkan afka gashaday ninkan marka hore ma ogeed ama ma lagaga warramay ninka horta inuu xaasleeyahay ma ogeyn kamana warqabino haddii aan ka warqabi lahaana ninka baroortiisii iyo qayladhaantii ka baxaysay iyo hala ii hiiliyo iyo dhakhtar hala ii noqdo iyo nin hiila ku soo mooday oo dhibanaya kollay waad u hiilinaysaa oo dayacan laakiin ma ogeyn inuu xaas leeyahay jacaylkuna maxaas buu leeyahay iyo malaha ma gale qofka sidiisuu u galaayo qof gaboobay buu galaayo dhallinyaruu galaayo waa hinaasahoo kale iyo jacaylku waa walaalo waa mataano marka kama warqabin inuu xaas leeyahay in kale waan gartay heesta dardaaran badan baa ku jira adigoo himilada lahayd waxa inaad ninkan uga hiiliso jacaylkan oo bal gabadhani ay muxuu ahaayay maruun dhadhamiso jacaylkan ninkan rafaadkan soo mariyay xagga dambe erayadaada dardaaran baa heesta ku jira bal haddii waxaad leedayba aynu sidaa imika aynu kala nahay la kala ahaado oo calafku ina kala diro wuxuu la sii dardaarmayaa ninka kale calaf ilaahay ugu daro ayuu la sii dardaarmayaa sidee buu heesta ninku markuu dhageystay u arkay ninku markii hore aan kuu sheegay wax uga bilaaban xagga fanka lama arag waxaan ku idhi markii hore aan kuu sii sheegay waxaan ku idhi maxadada raadiyowga ma geysan karo meesha laga dhagaysto wadan hebel iyo cod hebel iyo raadiyo hebel marka waxba ugama bilowna suugaanta ee qolaa kula talisay oo tiri bal suugaantana ha lagugu heliyo markii kadib suugaantii u helisay oo uu ogaaday qudheeda waxba iskama bedelinoo mooyuu ka ahaa suugaantu hiilkii ay u gashay iyo inay waxtar tahay iyo magaciisigii dareenkiisa waa ka maqnaydoo ninku hadduu fuundi yahay oo taajir laga dhigo ama xamaal baan leeyahay nin xamaala hadduu taajir noqdo uu bukoodaa baa la yidhi oo dhakhtar kasta marka loo geeyo ilaa uu xamaalkiisii ku soo noqdo ma bogsado marka ninkaani nooc kale u samaysnaa hawlo kale u haystay waxba ma dareemin suugaanta culayska jacaylka ku kalifay ma dareemin suugaantii suugaanteenna dihan iyo dhaqankeenna doorka ma tahay mid daneeyo durbaanka u tuma haddii ay jawaabtaadu tahay haa fadlan taageer hoyga murtida iyo madadaalada ee murtibile